بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. soo dhawaada mar kale examkii midtermkii alxamdulilah si fiican buu idinku dhammaaday oo wanaagsan uga dhammaaday. cashiradeenii baan halkeenii kasii wadaynaa. maanta insha allah waxaan dhigi doonaa lecture aada u muhiima oo aada u muhiim la rabo oo aada u muhiima oo la rabo inaad si fiican aad usoo akridaan oo videogana aada daawataan. waa chapter aada muhiima, waana lecturekeenii afaraad oo ka sheekeyn doona maanta oo ah dental caries. dental caries waxaa loo jeedaa haddaan ku sheegno luqadda soomaaligeena waa suuska. dadka qaar ma garanayaan suuska. markaas maanta waxaan dhiga doonaa suuska. suusku waa maxay? suuska maxaa sababa? sidee buu dhacaa? stabiska uu marayo sidee looga hortagi karayaa? okay, calaamadihiisa, complicationka uu leeyahay, intaasoo dhan baan insha allah maanta dhiga doonaa haduu ilaahay raahdo. haye dental caries amba loo yaqaano suus, luqadina soomaaliga la waranayo waa suus. caries hadda maqashiin suus. wax kaloo la yihahdaa dental decay, waxaa suus. haddaba suusku waa maxay? waa breakdown of teeth due to acids made by bacteria process that creates a hole or cavity in tooth. waxaa nagu yiri iligii aan lahayn ee naturalka ah ayaa wax ku dhacaya, uu jajabaya. inuu uu jabo maxaa sababasa? waxaa sababasa acid. maxaa sababasa? waxa weeyaan waa acid. acidan inay iliga jajabinaysaa halkee inteebay ka imanaysaa? waxaa samaynaysaa bacteria. lama oran bacteria keliya laakiin waxaa lagu yiri waxaa samaynaysa bacterial process. waxaa laga wadaa bacteriadu keliya acid ma din karto, laakiin marka bacteriyadii ay cunto hesho, ay waqti hesho, ayay suuska sababaysaa. bacteriyada afkeena ayay si normaliya iskaga jirtaa oo waxaa loo yaqaanaa normal flora. oo bacteriyadu si afkay iskaga jirtaa, si normal iskaga jirtaa. laakiin waxay jaanis ka faa'iidaysanaysaa marka ay cunto hesho. cuntada markay hesho ayay waxay samaynaysaa waqtina hesho ayay sababaysaa inay sababato caries oo ilig uu jabo. haye waa breakdown of teeth oo ilig oo jabaya due to acid, oo acid kaas ay samaynayso bacteria sababayso. bacteria process, okay, that creates a hole or cavity in tooth. taasoo hadhow toola samaynaysaa inuu iligii uu dolooshamo oo ay samayso ay ka samayso ilig uu dolooshamo. haddaba certain bacteria that live in the mouth can cause cavity. haddaba afarta waxa weeyaan haddaad suuska maxaa sababa hadii la yiraahdo, waxaa sababa 4 shay ee isku taga ayaa sababaya. waa maxay weeyaan? waa bacteria. maxay weeyaan? lambar 2 waa maxay? waa sugar. 3 waxa weeyaan waa susceptible tooth. waxaa loo wadaa waa iliga u nugul, susceptible tooth. 4 waa time. 4 shay oo isku biirtay ayaa sababaysa suuska. haddii lagu weydiiyo hadii aad ogolaado waa maxaa sababaya suuska waxaa sababaya 4 shay isku tagay. lambar 1 horta bacteriyadu halkan afkeenu si normal flora
ay iskaga jirtaa okay oo bacteriada afkeena maanta bacteria haddii la rado meeqa bacteria ku jirta kumanaan milyan oo kun baa ku jirta afkeena ku jirta haddaba bacteriyada waxaad siisay waad quudisay maxaad siisay sukar baa siisay carbohydrate sukar baa siisay markaa sukarkaa siisay okay sukarkaa aad siisay bacteriadaas way quudanaysaa marka ay quudato waxa ay acid ku daynaysaa iligii u nuglaa okay iligii u nuglaa laakiin inuu iligu cavity u samaysmo inuu qofkan uu samaysmo dee hal maalinoo keliyood maxaanay aad ood cuntay ood cadiga weyday keliya suuska kuma dhacayo muxuu u baahan yahay time waqti u baahan yahay waqti bilow u baahan yahay sanaduu u baahan yahay waqti u baahan yahay inuu maxay uu suuskii uu samaysmo okay waa afartaa shay oo isku tagtay ayaa sababaysa suuska sababaysa ilkaha badanka u nugul ee suuska ku dhaco waxa weeyaan waa molariska waa aniga xiisidoona soo sharxay molariska maxay lahaayeen bit and fisher soma bit and fisher leeleymasha yare good kale ay leeyihiin markaa molariska gooska wax u nugul yihiin inay cuntadii wixii meesha ku dhegto hadhow toolana maxay uu burushkiina si fiican markuu gaari waayo uu suuskii halkaa ka bilaamo haddaba labada bacteria horta aadka most commonly suuska sababa waa labadan streptococcus iyo lactobacillus labada bacteria okay Mutinous streptococcus iyo lactobacillus species Mutinous streptococcus iyo lactobacillus waa labada ugu caansan ee sababa bacteria sababa most common bacteria associated with dental cavity okay cuntadan ka shaqeeyana badanka ee sokorta waxa weeyaan waa cunto loo yaqaano carbohydrates such as sucrose fructose glucose cuntooyinka carbohydrate-ka weeye cuntooyinka carbohydrate-ka ayaa sababaya haddaba waxaan rabaa inaad la fahantay inta baad rabaa inaad si fiican ila fahantaan okay waatan bacteriadii bacteria loo yaqaano Mutinous streptococcus iyo lactobacillus bacteriadii maxay heshay sugar okay carbohydrate macmacaan bay heshay okay macmacaan bay heshay markii macmacaan heshay hay adigiina waa adigan dee ilkii caday waayey ilkii waxaanay nadiifi waayey habeenkii xalaawad cuntid macmacaan cuntid buskooda cuntid iyada habeenkii aad seexatay marka maxaa dhacaya in iligii in maxay bacteriyadii ay soo dayso bacteria markay bacteriyadii ay soo dayso acid soo dayso acida intee ku daynaysaa waxay ku daynaysaa iligii markay iligii ay acid ay ku dayso hadhow toole halkaa maxaa ka samaysmaya cavity gudba ka samaysmaya okay halkaas inuu iligii dolooshamo ayaa halkaas ka samaysmasa inuu iligii dolooshamo halkaa ka samaysmasa intaas oo la fahmay ayaan u malaynayaa okay waxa weeyaan suuska waxaa sababa afar shay isku tagta waa bacteriyadii waa sugarkii iyo iligii u nuglaa iliga u nugul badanka ilka u nugulna waxa weeyaan waa molariska oo maxay waqtina hela waqti suusku hal cisho laba beri iyo saddex beri kuma samaysmayo wuxuu u baahan yahay waqti u baahan waqti badan waa qofkiiyo maanta mu nadiifin haddana beri dambe mu nadiifin haddana beri labaad beri saddexaad beri shanaad ilkii ninka qof afkiisii nadiifin waayo labada bacteria badanka sababtana waxa weeyaan waa Mutinous streptococcus iyo lactobacillus cuntooyinkana waxaan ku yiri waa carbohydrate cuntooyinka macmacaanka
okay waa bacteria bacteriada waa cunto heshay markay cunto heshay waxay soo daysay acid acid waxay ku daysay iligii hadhowtana maxaa samaysmay cavity baa samaysmay suus baa samaysmay haddaba dental plaque waxaa lagu yiraahdaa Soomaali waa huuro okay huurada okay waa huuro af Soomaali waxa noqonaysaa waa huurada huuro dental plaque hadaba huurada is colonized of bacteria bacteria iminkaan kuu sheegay bacteria iminka walaa streptococcus iyo lactobacillus waxay ku dhex jirtaa waa maxayaan waa huuradii ku dhex jirtaa Hey, dental plaque is colonized of bacteria that build up and stick the two surface. Marka huuradani waxay sameynaysaa inay ku dhegto iligii ay ku dhegto. Isata ugu horeeya waxa weeyaan marka ugu horeysa maxaan iliga qofka u nadiifi. Marka ilig qofka saa u nadiifiyo. Tusaale maanta imika iligii nadiifisay. marka iligaa si fiican u nadiifisay xoogaa nusu saac ka bacdi amba hal saac ka bacdi waxaad arkaysaa iligaagii oo ay ku samaysantay wax yar waxaad dareemaysaa inuu iligaagii leeyar ku dul samaysmay leeyarka waxaa loo yaqaanaa bilical oo marka marka la nadiifiyo candhuuftaa waxay samaynaysaa wax loo yaqaano bilicalkaas marka iligii ay dahaarto baashan huurada loo yaqaano ayaa helaysa meel ay qabsato markaabay maxay ay qabsato ayay meeshii uu suus markaa meeshii ay huuradii ay ku dul samaysmaysaa oo ay bacteriadii maxay halkaa ay ku urursa marka bacteriadii halkaa ay ku ururto ay cuntana hesho kabacdiba iligii ku dinaysaa acid hadhow toona halkaas waxaa ka dhacaya suuskii baa ka bilaamay haddaba bacteria in the plaque break down carbohydrates and sugars saan hore ugu sheegay waxay quudanaysaa carbohydratekii quudanaysaa markay quudato okay marka waxay ku samaynaysaa maxay break down carbohydrateska ay burburinaysaa ay quudanaysaa markay quudato waxay soo daynaysaa acids haddaba acidaasi waxay samaynaysaa in ay iligii weliba kii loo yaqaanay animalka waana nagu yiri animalku waa qaybta ugu adag ee jirkeena mineralka wuxuu ka kooban yahay boqolkiiba 96 buu ka koobnaa soo mineralka waa xubinta jirkeena ugu adag waxa weeyaan waa animalka mineralka wuxuu ka koobnaa saan hore ugu sheegay boqolkiiba maxay 96 ayuu ka koobnaa oo mineraala haddaba acidan waxay samaynaysaa inay mineraashi ay lahaa animalku inay yarayso 96 ay yaraynaysaa mineraashi bay yaraynaysaa haddii markay mineraashi yarayso waxaa loo yaqaanaa demineralize kabacdina waxay samaynaysaa weaken the tooth animal marka animalkii adkaana wuxuu noqonayaa daciif daciif u noqonayaa because the mineraashi faraha badnayd baa ayaa yaraatay mineraashi faraha badnayd baa ayaa yaraatay haddaba marka haddaba uu animalkii uu mineraashi ay ka yaraato animalkii ee weak noqdo kabacdi once the decay penetrates the animal suuskii marka hore wuxuu kaasoo maaha animalka suusku animalka uu ka gudbayaa kabacdi waxa uu gudbayaa layerkii ka hooseeyey dentin it spreads quickly through the less dense dentin dentitu saa hore ugu sheegay dentitu way ka jilicsan tahay way ka yara jilicsan tahay marka la garab dhigo animalka kabacdi dentitu waxay sameynayaan dentintii suuskii si degdeg ah ugu faafo haddii qofku marka uu suuskii uu dentito gaaray hadduu iska daweyn waayo if left untreated haddii iliga uu buuxsan waayo if left untreated the decay will progress markaa suuskii decay waa suuskiya decay will progress through dentin kabacdi suusku soconaya oo soconaya dentiti ilaa uu hadhow toola uu gaaro
maxay balbiga uu gaaro. Balbiguna waxa weeye affected the tooth bulb, balbigana waa qaybtii dareenka iyo noo qaabilsaneyd iyo nutritionka noo qaabilsaneyd, haddaba noo qaabilsaneyd. Okay, intaas waa la fahmaa malaya. haddaba waxaan rabaa inaad fahantiin stageska uu maro caries-ku maro, stageska uu maro. Lamber kow haddaba waxaan eegnaa stageka ugu horeeya. saa hore ugu sheegay, lamber kow haddaba waa dental plaque oo loo yaqaano loo yaraado af Soomaali waa huurada. Huuradii ayaa waxaa samaysay is left and distributed. Qofkii wuxuu sameeyey wuxuu leeyahay huuradii wuu iska daayay. Huuradii qofkii ma cadayn, nadaafadii afka kumuu dadaalin, ilkihii muu cadayn, muu nadiifin, wuu iska dhaafay. Kabacdii bakteeriyadiina waxay quudanaysaa ku yiri, bakteeriyada maxay quudanaysaa sheega? Waxay quudanaysaa carbohydrateska, cuntooyinka macmacaan. Marka cuntooyinka macmacaan ay quudato, ninku lahaa qaybta ugu sareysa ee animalka waxay ku sameynaysaa inay mineralsha ka yareyso. Marka ay mineralsha ay ka yareyso, calaamada ugu horeysa ee la arkayo waxaa loo yaqaanaa chalky white, waa meel yar oo cadaan. Cadaankaasi muxuuna tusayaa? Wuxuuna tusayaa where minerals have been removed. waa qaybtii mineralshii laga kaxeeyey. Marka wuxuu lahaa mineral fara badan oo xubinta jirkan ugu adag, boqolkii wuxuu leeyahay 96 buu lahaa mineral uu lahaa. Mineralshii uu lahaa kabacdi halkii waxaa ku samaysantay dental plaque huuradii qofkii muu cadayin, muu nadiifin. Markuu uu nadiifin huuradii iska daayay, meeshii waxaad cuntay cunto macmacaan. Cuntadii macmacaaneyd bakteeriyada quudanaysa. Markay bakteeriyada ay quudato, waxay acid ku daynaysaa qaybtii animalka. Markay acid ku dayso, acid waxay sameynaysaa in iligii animalka mineralsha ay ka yareyso. Markay mineralsha ka yareysana, maxaa noqonayaa weli calaamada ugu horeysa chalky white, cadcadaan yaryar. Cadcadaankaas cadcadaankan waxaan ku sheegay xiisadii horena waxaan ku sheegay stageka ugu horeeya fluorosis-ka qofka waxa lagu arkaa cadcadaan. Labada cadcadaan waxaa ku garanaysaa kan kale wuxuu leeyahay fluorosis-ka cadaankan de markuu iligii soo baxay ilaa markaaskii leeyahay. laakiin qofkan cadaankan wuxuu ku leeyahay war bilaha dambe iyo sanadkan ay baan cadcadaanka yar isku arka ku leeyahay. Okay, haddaba cadcadaankii yaraa marka qofku iska daayay ee uu caday waayey ee iska dhaafay ee mineralsh ay yaraatay, markay mineralsh ay yaraatay, haddaba if the demineralized mineralshii kolba yaraanaysay haddii ay socotoon hadhow toole maxaa samaysmaya? Cavity baa samaysmaya. Cavity ama hole ama meeshii waxa samaysmaya god baa samaysmaya inuu iligii uu dolooshamo. Inuu iligii maxay uu dolooshamo? Inuu iligii dolooshamo. Inuu iligii uu dolooshamo. Okay, markii hore waxaan ku yiri halka qaybta sare ee animalka ayuunbaa yara cadaatay soo ma? Markii yara cadaatay ee mineralsh ka yaraatay, way socotay hadhow maxaa dhacaya? in hadhow toole uu suuska soo socday uu meeshii mineralsh ka dhameeyo, hadhow toolena halkaasi ay ku dhacdo breakdown, ay jabto. Markay jabtana hadhow toole halkaa wax ka samaysmaya cavity ba ka samaysmaya. Okay, waa kan. Haddaba marka uu suusku uu inta halkaa marayo, halkaa ilaa halkaas waxa weeyaan waa animalkii. Markuu suusku halkaa inta animalka uu suusku marayo, qofku wax alla wax xanuun ah ma dareemayo. Qofku leeyahay suus baan leeyahay laakiin wax xanuun ah iguma hayo leeyahay. Okay, marka animalka qofku suuska ku leeyahay animalka wax xanuun ah ma dareemayo. Laakiin markuu suuskii animalka soo dhaafo ee uu tago qaybta hoose dentinti uu tago qofku wuxuu ka caabanayaa
waxay ku oranayaa biyaha kulul, biyaha qabow, cuntooyinka macmacaan markaan cuno xanuun baan dareemayaa. xanuun baan dareemayaa. laakiin markaan cuntooyinka macmacaan iyo sokorta iyo waanay biyo qabow iyo biyaha kulul markaan iska daayo iska dhaafo xanuunku wuu iga istaagayaa. Okay, marka waxa aan cuno macmacaan cuno ama biyo qabow ilig way xanuunayaa. laakiin marka biyo qabow ama macmacaankii aan iska daayo xanuunkii way istaagayaa ayuu ku oranayaa. laakiin hadhow toole marka uu maxay suuskii uu gaaro qaybtii baalbigii uu gaaro qof wuxuu leeyahay iligii kama seexan karayo, xalay toole maan seexan, anoo iska fadhiyo i xanuunayaa, xanuunkii marba igu soo boodayaa. Okay, ayuu oranayaa. intaa la fahmaan mulayaa. adoo suusku marka ugu horeysa wuxuu ataagerayaa saa hore ugu sheegay qaybta ena markay ugu sareysa. waxaa ku xigay haddana qaybta ku xigtee dentiinta. dentiinta aniga hore ugu sheegay dentiinta way ka yara jilicsan tahay marka la garab dhigo animalka. marka dentiinta la gaaro suuskuna aad ayuu u fidaa. Okay, waxaan sawiradan iyo cashirka waxaan ugu soo celinayaa inaad waxaan doonaya wixii aad la fahantaan baan doonaya waxaan ugu soo celinayaa. waa kan suuski marka hore wuxuu ka ekaa animalka, weli wuxuu ka egaa animalka qofku wax xanuun ma dareemayo. lambar iminkana suuskii wuxuu soo gaaray qaybtii dentiintu soo gaaray. markuu qaybtii dentiintu uu suusku soo gaaray qofku wuxuu dareemayaa biyaha qabow iyo biyaha kulul iyo ayuu xanuunka dareemayaa. laakiin marka biyaha qabow iyo biyaha kulul uu iska dhaafo xanuunku ka istaagayaa. laakiin hadhow toole haddii uba xanuun kaareyskii suuskii uu gaaro baalbiga uu gaaro qofkii kama seexan karayo, kama joogi karayo, iligii aad buu xanuunayaa. haddana isagoo xanuunka kasii adkaysto hadhow toole haddana suuskii bacteriyadii waxay sababaysaa ama inflammationkii waxaa hadhow toole u sameynayaa inuu baalbiga uu kasii gudbo uu tago qaybta birabicalka iliga hoostiisa qaybta birabicalkii uu tago bacteriyada tagto. Okay, the carriers process eventually reaches baalbigu gaaraya. baalbigu wuxuu ka kooban yahay nerves and blood vessels. Okay, marka hore waxaan ku yidhi calaamada ugu horeysa waxaan ku yidhi waa white spot cadcadaan yar. cadcadaankii yaraa qofku isku daayay muxuu yeeshay inuu qaybta animalkii uu ku yeesho suus ku yeesho. haddana uu iska dhaafay suuska ku gaaray qaybtii dentiinti. haddana uu iska dhaafay oo iligii muu buuxin iska daayay. Okay, hadhow haddana wuxuu gaaray suuskii wuxuu gaaray macagee inuu qaybtii dareemaha u gaaro baalbiga gaaro. baalbigii haddana hadhow toole wuu soconayaa halkee u tegayaa iliga hoostiisa. hadduu iliga hoostiisa tagana halkaa waxaa ka samaysmaya absas oo qofku kuonayaa iligii baa bararay. iligii waxuu yeeshay barar buu iligii yeeshay. Advanced stage of tooth decay is injury to the bulb. hadhow toole baalbigii u dhacaya infected oo baalbigii iyo bacteriyada gaadhay kabacdi hadhow waxaa dhacaya inuu maxay absas uu ku samaysmo tip of root of tooth uu ku samaysmo. markaana qofku wuxuu kuleeyahay iligiibaa maxay ii bararay. iligiibaa ii bararu leeyahay. Okay, bararka amba wax lagu arki karaa ciridka hoostiisa lagu arkaa amba qofkiiba daankiiba uu soo baray lagu arkaya. Okay, haddaba suuska meelaha ku samaysan suusku waxay ku samaysmaan meelaha suuska ku samaysmaan waxa weeyaan waa crown caries oo loo yaqaano crown laba loo qaybiyaa crown caries iyo root caries. crown waxa weeyaan wanigii hore ku sheegay crownku waa qaybta ka sareysa jinjifada ka sareysa ciridka ka sareysa waa kan. Okay, ku dhacayaa meelaha loo yaqaano beta fisheries-ka waa meelaha ugu badan ee suus ku dhacayo. cuntadii ayaa meelaha ku haraysa kabacdina
belegkii huuradiiba ka faa'iidaysanaysa hadhowna halkaas suuskiiba ka bilaabmaya. Okay, smooth surface carriers. Okay, waa kan meelihii qaybtii proximaalkii misil iyo distal ku samaysmo amba ku samaysma qaybtii roodka. Okay, waa kan smooth surface waxaa laga wadaa misilkii iyo distalkii ay ku samaysmayaan. misil iyo distal wuxuu yahayna horaa soo sharxay marka dhiganay jihooyinka ilkaha misil iyo distal. tan kan waxaa leeyahay misial distal misial distal. markaas qaybtii misilka iyo distalka ay ku samaysmayaan. misil iyo distal waxaa loo yaqaanaa proximal surface baa loo yaqaanaa. Okay, waa between teeth wayta ilkaha u dhaxaysa oo koornayaasha ilkaha. haye haddana root carriers waxaa weeyaan waa isagoo root ku samaysmay halka qaybta root ku samaysmay badankana rootku wuxuu dhacaa markuu ciridkii jinjafadii ay hoos u baxdo. xanuunada ku dhaca jinjafadana insha Allah waan dhigi doonaa caabuqa gingivitis-kii waxaan dhigi doonaa. marka uu maxaanaya jinjafadii marka ay hoos u dhacday gingival recession dhacdo ayuu root carriers ku samaysmaa. badankana waxaa lagu arkaa dadka waayeelka ayaa lagu arkaa. haddaba calaamadaha lagu arkayo qofka suuska leh calaamadaha lagu arkayo waa maxay? kow waxa weeyaan hole in tooth with the tongue. qofkii oo carabkiisa ayuu wuxuu ku dareemayaa inuu iligiisa u yaro dalooshamay. indhihiisa kuma arkayo laakiin marka uu carabkiisa iligii ku firfiiriyo wuxuu arkayaa meelo yaroo dalooshamay ayuu arkayaa carabkiisa ku saaraado wuxuu oranayaa carabkiisa ku fiirinayaa markaa uu arkaya iligii oo meelo yaro dalooshantay. lambar 2 iligii oo u ekaaday brown or black discoloration iligii madowaaday. madowgan badanka suuska maxaa keenay inuu madoowaado? qofka marka iliga suuska ka dhaco maxay laga madoobeeya? waxaa madoobeynaya waa cuntooyinkan aan cunayno shaahan madow iyo black tea iyo kafeegan iyo waxaan aan cunayno ayaa suuska ka dhigaysa madow ka dhigaysa. black discoloration. haye haddana maxaa la arkayaa cavity waxa weeyaan waa god waa iligiyo dalooshama. waxaa kaloo la arkayaa frank pain waxaa la arkayaa xanuunkaas qofku goormuu ka cabanaya? wuxuu ka cabanayaa markuu cuno waxyaabaha yara macmacaan uu cuno amba markuu cabo waxyaaba kulul amba waxyaaba qabow markuu cabo ayuu xanuunka dareemaya. complicationka ay leedahay suusku leeyahay wax kamid ah kow inuu inflammation ku yeesho aroda iliga. Okay, iliga aroda tooth inuu inflammation ku yeesho inflammation of tissue aroda tooth. sidoo kale in maxay lost tooth in qofka hadhow tole iligiisii uu sida ku waayo markuu suuskii iligii burburiyo in qofka hadhow iligiisaba laga siibo. sidoo kale wuxuu sababayaa infection or abscess formation inuu infection ku sababo amba inuu maxay abscess qofkii uu ku samaysmo oo hadhow tole uu maxay la yiraahdo qofkii iligii ayaa baaray. haddaba sidee baan uga hortagi karnaa suuska? waxaan baranay suusku wuxuu yahay calaamadaha lagu garto iyo waxaas iyo 4 shay ee sababta iyo waxaan baranay stages. iminka hadda waxaan baranaa sidee baa looga hortagi karaya suuska? sidee baan uga hortagnaa? waayo waxaa la yiri ka hortaga ayaa ka wanaagsan iska daaweynta. Okay, prevention is better than cure. هذا prevention level of prevention صدق وقبعنا primary prevention. Okay, secondary prevention صدق tertiary prevention صدق وقبعنا. primary prevention وحويان ومركة وقفكي ولي سوسك الكودعين. Okay, قفكي إنك سوسك كمدعين ولي سوسك كمدعين إيوا كورتك كو إلا سمايو قفكو سمايو بليك control program inuu qofkii uu maxay uu hagaajiyo oo la hagaajiyo nadaafada afka hagaajiyo inuu controlo huuradiisa iska controlo. Okay, oo muxuu samaynayaa inuu maxay bedelkii inay samaysanto diidaya
adoo isagoo sameynaya by flossing. Flossing waxaa la yidhahdaa flossing waxaa la yidhaahdaa flossing waxaa la yidhahdaa waa maxay waa dunta yar ee labada ilkood dhexdooda lagu cadayo keliya burush kaliya isticmaalin okay flossing ay isticmaalo oo waxaa samaysaa waxaa jirta dun yar duntaa yar waa supermarketka oo lagu iibiyaa dunta yar ee lagu cadayayo labada ilkood dhexdooda ee lagu cadaya iyo brushing oo waxaa burushkii adoo isticmaalaya Polaroid toothpaste ay ka kooban tahay Polaroid anigii xiisad badan kusoo sharxay Polaroid waxay faa'iido noo leedahay inay ilkii mineraashi luntay inay u soo celiso okay markaas badankana tan la yidhahdo Colgate ayaa Polaroid leh okay number 2 in la sameeyo patient education in dadkii wax la baro in dadkii loo sharxo siduu caday lahaa inuu cuntooyinka sokorta badan uu isa kala yareeyo sidoo kale waxaa jira barnaamij la yiraahdo Bit and Fisher Sinat waxa weeyaan waa maxaanay halkan dadka qaar baa waxa weeyaan halkani waa god oo hoos u godan tahay maadaama hoos u godan tahay waxay u nugushahay inuu isku dhaco marka halka baa la soo yar buuxinaya si burushkii si fiican ugu gaaro waxaa la yiraahdaa Bit and Fisher Sinat oo lagu soo celiyo beerimeer waxa weeyaan waa suuskii inuu koyni ka hor waa in aad nadiifisaa nadaafadda ku dadaashaa oo ilkaha cadaydaa burush isticmaalaya iyo flossing iyo dunta yar lagu cadayo isagoo faahfaahsanayo sida loo cadaydo inay waxaas oo dhan insha Allah xiisad dambe yaan ku dhigi doonaa sida ilkaha loo cadayo dawada ugu fiican la isticmaalo ku dhigi doonaa insha Allah xiisadeena soo socda okay ilkaha nadiifin ilkaha wayna cadaynaa subaxa iyo habeenkii number 2 imika suuskii ku dhacay qofkii suuskii u helay hadduu suuskii ku dhacay oo iligii uu cavity uu samaysmay waa inaad samaysaa waa inaad iligii aad buuxisaa iliga preventive resin restoration iligii buuxi iligii maxay buuxi iligii waa buuxinaysaa buuxi iliga uta qof dentistiya buuxi haddii aad buuxin weydo isagoo intaana bilowga ku jira haddaad buuxin weydo suusku soconaya halkee u tegayaa neerfiis ku tegayaa neerfi hadduu neerfaha tagana qofku wuxuu dareemayaa xanuun zaa'ida hadduu dareemana waxay noqonaysaa in qofka loo sameeyo root canal treatment in qofka dhuuxiisii laga dilo oo dareemaha laga dilo si uu xanuun badan xanuun u dareemin okay so xanuun u dareemin waxaan ku yiri suuska ku dhacay suuska iska buuxi waad buuxin weyday hoos buu socdaa ugu tagay baalbigii wuxuu ka gudbay dentintii wuxuu tagay baalbiga hadduu baalbiga tago qofka wuxuu dareemaya xanuun zaa'ida markaa qofku inuu dhuuxa qofka dareemaha uu soo dilaa okay qofku inuu ilkii uu iska buuxiyaa hay qofkii uu iska adkaystay xanuunkii uu iska adkaystay waxba muu sameyn faruu ka qaaday wixii dareemihii muu dileen maxaa dhacaya inuu iligii uu aad u burburay marka maxaa la sameynaya tertiary perforation waxa weeyaan waa in iligii laga siibo extraction waxa weeyaan waa in qofkii iligii laga siibo khalaas iligii wuu burburay iligii rajo ma laha iligii lama buuxin karayo marka qofkii iligii waa laga siibayaa marka la siibana hadhow qofkii waxa ku qasbanaanayaa inuu gashado
artificial tooth prosthodontics waxaa dhahdaa marka qofka loo geliyo artificial teeth colonoscopy prosto means waa artificial dontics waa teeth marka waxa weeyaan in qofkii loo geliyo ilko artificial loo geliyo marka qofkii iligii laga siiyo cashirkeena maanta intaa buu ku eg yahay oo waxaan baranay suuska wuxuu yahay waxaa sababa stage isku maro iyo calaamadaha lagu garto iyo sida looga hortagi karo iyo complicationka uu leeyahay waxaan rajeynayaa inaad markaad si fiican u daawataan inaad cashirkaad fahmi doontaan videogana hal mar iyo laba mar iyo saddex goor ku cesho insha allah waad fahmi waxaad fahmi weydaan insha allah waad su-aalana waad isoo weydiin doontiin aad waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu